asalaamu calaykum waan ku salaama daawade meel walba aad joogto waxaan rajaynayaa in caafimaad aad ku daawan doonteed warbixintan ku xiise gelinaysa haddii damacaagu uu yahay in aad qayb ka noqoto dadyooga u dalxiis taga waddamadan aynu ka hadlayno maanta waxaynu ka wada sheekaysanaynaa aanu daqiiqadahanan kugu fahansiin doonaa haddii uu eebbahayga uu qadaro magaalada rooma waa magaalada caasimadda ah iyo sidoo kale wadajirka gaarka ee talyaaniga magaaladu waxay ahayd degsiimad aad u weyn oo bini'aadanka ku dhowaad 3 sano ku noolaa iyada oo ay degan yihiin dadan 2,860,009 ruux sidoo kale waxay ku jirtaa magaaladan wadamada ugu dadka badan adduunka waa magaalada saddexaad isla markaana taasi oo aan kala jeedo in ay tahay magaalada saddexaad ee ugu dadka badan midowga Yurub marka loo eego dadka ku nool magaaladan dhexdeeda waa bartamaha magaalada metropolitan city ee Roma oo ay ku nool yihiin dad gaaraya 4,355,725 ruux taasoo ka dhigaysa inay tahay mar kale magaalada ugu ballaaran magaalooyinka waaweyn ee talyaaniga aagga ay ku taalo waa meesha saddexaad ee ugu dadka badan ee talyaaniga Roma waxay ku taalaa qaybta dhexe galbeedka jasiiradda talyaaniga gudaha Lazio oo ku tiirsan xeebta Tiber magaalada Vaticanka waxaa lagu sheegaa inay tahay waddanka ugu yar adduunka waana waddan madax bannaan gudaha xuduudda magaalada Roma ku yaala tusaalaha kaliya ee jira ee waddan magaalo gudaheeda ku yaala ayaana lagu sheegay tan sababtaasi aawadeed Roma ayaa mararka qaarkood lagu qeexay inay tahay caasimadda 2 gobol taariikhda Roma waxay ku eg tahay qarnigii 18aad inkastoo khulaafadii Roomaanku ay bilaabeen aasaaskii Roma qiyaastii 753 dhalashadii Ciise calayhi salaam ka hor taasoo ka dhigaysa mid ka mid ah magaalooyinka ugu da'da weyn sida joogtada u degan Yurub dadweynihii hore ee magaalada waxay asal ahaan ka soo kala jeedeen Latinis Etruscan iyo sidoo kale Sabinis ugu dambeyntii magaaladu si isdaba joog ah ayay u noqotay caasimadda boqortooyada Roomaanka jamhuuriyadda Roomaaniga iyo sidoo kale boqortooyadii Roomaanka dad badan waxa ay u haysteen inay tahay magaalada ugu horeysay abid iyo sidoo kale magaalo weyn farshaxano caan ah rinjiilayaal farshaxano iyo sidoo kale naqshadayaal iyagoo abuuraya farshaxano magaalada oo dhan ah sanadkii 1871 Roma waxay noqotay caasimadii boqortooyadii Talyaaniga taas oo sanadkii 1946 noqotay jamhuuriyadda Talyaaniga sanadkii 2019 Roma waxay ahayd magaalada 11aad ee loogu booqashada badan yahay adduunka iyadoo leh 10.1 milyan oo dalxiisayaal ah ama 10.1 milyan oo dad dalxiisayaal ah waa magaalada saddexaad ee ugu booqashada badan midowga Yurub waana halka ugu caansan ee loo dalxiis taga Talyaaniga xarunteeda taariikhiga ah ee UNESCO ayaa lagu sheegaa inay tahay goobta hidaha adduunka Roma sidoo kale waxay tahay xarunta ay hay'ado dhowr ah oo gaar ah oo ka socda qaramada midoobay sida cuntada iyo beeraha ururka FAO barnaamijka cuntada adduunka WFP iyo sidoo kale sanduuqa caalamiga ee horumarinta beeraha IFAD ama IFAD magaalada sidoo kale waxa ay martigelisaa xoghaynta golaha baarlamaanka ee midowga badweynta Mediterranean-ka iyo sidoo kale xarunta dhexe ee shirkado badan oo ganacsi caalami ah sida Eni, Enel, Tim, Leonardo iyo sidoo kale SBA waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan waxaan filayaa wax badan inaad ka fahantay magaalada Roma
oo in badan aanu filayo in saaxiibada kale ee daawada muuqaalkan ay nagu xishmeyn doonaan daawashada haddiiba ay jirto inay qiimeynayaan aadista amaba u dalxiis tegidda magaalada Roma ee dalka Talyaaniga oo wax badan aan idinkaga fahansiinay. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. Si aan in badan muuqaaladan iyo kuwa kale oo aan kaga hadlayno magaalooyinka dalalka caalamka ee quruxda badan aan idinkugu soo gudbino, fadlan nagu dhiirigeli muuqaalkan oo share garee, sidaas la midana subscribe garee channelka. waad ku mahadsan tahay daawashadiisa.